waxaa maanta degmooyinka Dila iyo Boorama si diiran loogu soo dhaweeyay musharax xildhibaan Bashiir Xuseen Xirsi oo ka tartami doona golaha wakiilada xisbul xaakimka kulmiye gobolka Awdal ku meteli doona soo dhaweeyntani loo sameeyay xildhibaanka oo ahayd mid aan loo kala hadhin ayaa waxa ka qayb qaadanayay odayaal waxgarad siyaasiyiin aqoon-yahan dhalinyaro haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Boorama iyo taageerayaasha tirada badan ee musharax xildhibaan Bashiir soo dhaweyntaasi kadib ayaa waxa uu musharaxu ugu horeyntii xariga ka jaray laba xafiis oo qayb ka noqon doona ololaha doorashada soo socota intaasi kadibna musharaxa iyo mas'uuliyiintii kale ayaa waxay bulshada degmada Dila kala qayb galeen munaasabad si heer sare ah loo soo qaban qaabiyo oo ka qabsatay gudaha degmada Dila munaasabadaasi ayaa waxa ugu horeyntii ka hadlay Bashiir Xuseen Xirsi oo ah nin u dhashay degmada Dila maanta waxaan u soo dhaweynay silkaliya laabta isagoo ah xisbi xaakinka waxaan ilaahay ugu rajaynaynaa kii soo baxay bashbashiyo barwaaqo ku soo baxa Allah ka yeelo aruuriya iroole adiga lagu codayn hooyo waa lagu goohayo waa lagu gudiyay waa lagu baaqayo waa lagu ballamay ooyayadi reer tolka waxay yihiin diyaar hortaada iyo hareertaada la taagan yahay si awgeesi dhalay Bashiiro waan ku duceeyay dadka u horee doorashada dad badan baa maanta reer Dilaad hadii la yiraaho saddex baa baarlamaanka u sharaxan saddex inan yaa baarlamaanka u sharaxan saddexdaasba inay soo baxaan oo baarlamaanka la iskugu geeyo Dila laga sugaya waxa weey walaalayaal sida aad maanta aad u soo dhaweyseen ee aad ugu soo galbiseen dharaarta doorashadana ay dhacayso codkana sidaas loo in la idinku farxad la doonayaa xildhibaan Bashiirna waxaan leeyahay waxaan ku rajaynaynaa ilaahay ku baryeena waa rabadaan waa ayaamihii u dambeeyay astaanta lahaa ee laynoo sheegay guusha inuu ilaahay ku siiyaan ilaahay ku barino adigana waxaan ku leeyahay dadka hadday dadku madax noqdaan hanti ma wada gaarsiiyaan oo nin walba ma siiyaan laakiin cadaalad baa la gaarsiiyaa reer Soomaaliland haddaad soo baxdo alla wuu ku siinay cadaalad gaarsii waxa la iskugu faanayaa magaalo markaa waxaan idin leenahay walaalayaal waxaad ogaataan inaan hawlgalkaasi inaan ka midho dhalinno hawsha aan bilaabnay inaan ka midho dhalinno oo midho dhilkeeguna yahay inaan codka si fiican yar iyo weyn aan si fiican u bixinno oo inamadaan soo doranay ganduhu u keenay golaha u keenay la siiyo codka haddii alla yiraahdo lana soo dhaweeyo waxaan leeyahay Bashiir ku soo dhawow degmadaadii gobolkaagii iyo dadkaagii oo maanta si fiican kuugu heelan oo annaguna aan qayb ka nahay maadaama aan nahay musharaxiintii kugu sidkanaa marka xagga dhalinyarta laga eego waxa weeyaan 100% codkooga diyaar bay ku leeyihiin mudane xildhibaan Bashiir Xuseen Xirsi soo dhalinyartu sida diyaar u leeyihiin codkeena diyaar u leeyihiin waxa way xildhibaanna waliba astaan gaar leeyihiin arinta waan idinku adkeenayaa Bashiir xildhibaan kaaru idin wadaa kaarahaas waa kaarihii nabadda weeyaan kaarahaasina waxa weeyaan marka loo baahdo xagga dambe inuu wax ka riixo waad garanaysaan waxa weeyaan waa quwadda loo yeedhanayo wuxuu ku toosinayaa ku ilaalinayaa kaaraha nidaamka la yiraahdo dimuqraadiyadda wuxuu ku ilaalinayaa xuquuqda insaanka wuxuu ku ilaalinayaa horumarka waddanka kaarahaas hadii jeer ilaalinaya markuu xildhibaannimada inoo fuuliyana hadii jeer wuxuu noqonayaa qof hadii jeer u doodo bulshada hadii Ilaahay yiraahdo waxaan leeyahay guusha Bashiir ma siinaa ma u codaynaa Bashiir Xuseen Xirsi waxaan leeyahay Bashiir Xuseen Xirsi oo ka sharaxan xisbiga kulmiye maanta waxa ku soo dhaweeyay dadweynaha Dila oo aan u kala hadhin iyagoon loo kala abtirin dhankiisa murashax Bashiir Xuseen Xirsi oo ugu dambeyntii halkaas ka hadlay ayaa u mahad celiyay cid kasta oo ka qayb qaadatay soo dhaweyntiisa maanta anigoo xildhibaan ah xisbiga kulmiye ah ka soo jeeda degmada Dila oo aad u ballaaran marka waxaan ku faanayaa maanta oo aan leeyahay waa meel lagu faano Dila inaan maanta u sharaxanahay
degmada Dila oo aan uga qayb galayo xildhibaanada golaha wakiilada ee Somaliland waxa kale oo iyadana aan aad ugu faraxsanahay in aan soo celino dib u dhiskii degmada Dila waxa kale oo aynu waxaan kaloo degmada Dila aan doonaa inaan ka dhigno oo aan ku doodi doonaa ogaan doontaan in laga dhigmo degmo buuxda oo doorasho leh oo xildhibaanadeeda wadata waxa kale oo iyadana aan ka shaqayn doonaa horumarka beeraha biyaha iyo xoolaha haddaba si aynu hawlahaas oo dhan u gaarno oo hawlahaas oo dhan aynu u fulino waxaan idinka baahanahay in aad codkiina na siisaan intaasi kadibna musharaxa ayaa loo soo galbiyay dhanka iyo gudaha magaalada Boorama wuxuuna xariga ka jaray laba xafiis oo xisbigu ku yeelan doono gudaha magaalada Boorama kuwaas oo qayb ka noqon doona ololihiisa doorashada